السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa barnaamijkii labaad maanta isniin aan idiin soo gudbinayno taariikhduna waa 30 bisha June sanadka 2025. barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta oo sheegay inay gubeen oo ay nagta ka saareen qaar ka mid ah taangiyada Israa'iil dagaal goordhow ka dhacay Gaza. Masar oo sheegtay in iyaga iyo Mareykanku ay ka wada hadleen sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadalladii xabad joojin looga hirgelin lahaa Gaza. hogaamiyaasha mucaaradka Lieberman iyo Katz ee Israa'iil oo labaduba ugu baaqay xukuumadda inay degdeg u joojiso dagaalka Gaza maxaabiistana hal mar lagu heshiiyo kulligood in la soo daayo. haddaba xaaladihii ugu dambeeyay Gaza oo aad u kacsan xaaladeeda iyo duqeymo ay Israa'iil halkaa ka geysatay saacadihii la soo dhaafay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. qaybaheena dambe ee barnaamijkeena galabta waxaynu idinkugu haynaa hadal ay aad u sugayeen dunida carabta kuwa islaamka iyo dadka Suuriyaba oo ku saabsan qorshaha Israa'iil inay qaadato buuraleyda Golan Heights oo markaa ay ku bedelato heshiis ay la gasho Suuriya. muxuu ka dhihi doonaa wiilka dhalinyarada Ahmed Al-Sharac ee madaxweynaha ku meel gaarka ka ah Suuriya? haddaba hadalkii Ahmed Al-Sharac ayaa soo baxay, ma dhiibayaan Suuriya buuraleyda Golan mise way haysanayaan oo heshiis ma jiro? haddaba tafaasiil aad muhiim u ah oo ku saabsan arrinkaas ayaynu qaybaha dambe ee barnaamijkeena galabtana ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idinla socodsiinaya. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo. waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Gaza waxaa ka soconaya dagaal, duqeymo, dhibaato, gaajo, dawal la'aan intaba way ka jirtaa. xaalku aad u xun yahay la leeyahay. dhaqaatiirtu waxay leeyihiin isbitaalada dawadii waa eber, wax yaala male. dadkii raashinka u doontay meeshii Israa'iil ay tiri raashina laga bixinaa maalin walba waa la soo laayaa. maanta kaliya waxaa la sheegayaa in 10 qof lagu dilay halkaas oo markaa iyagoo doonanayay raashin. waxaa sidoo kale Israa'iil ay burburisay xaafado ku yaala Gaza oo ay duqaysay iyadoo ku marmarsiyoonaysa in halkaa ay yihiin goobo ay ku jireen dagaalyahano. haddaba dadka reer Gazana waxay sheegayaan in qoysas meelay degan yihiin oo barakacayaal ah ay Israa'iil duqayn u geysatay. haddaba xaalkaasu waa axwaasha guud ee magaaladu ay ku nooshahay, dadka ay ku nool yihiin. marka ilaahayo waxaan leenahay dadka dhibaatada iyo mushkiladda ay ku jiraan ka saar. dhanka kale iyaguna way dagaalamayaan. inta naftu nugu jirto annaguna nagtaasa ka gurayna yiraahdeen. Al-Yaasiin inta aan haysano iyaguna ma kulladayaan meesha. haddaba maanta waxaa la sheegayaa goor dhow waliba in war uu soo baxay la leeyahay
ciidanka Israa'iil meel ay joogaan iyagoo wada meel kale inay uga gudbaan raba ayaa meel dhexe nimanka muqaawamadu ay iska heleen Saraaya al-Qudus iyo Kataa'ibul Qassam xubno ka socda oo alyaasiinkooda la wiifaya miinada meesha ay u taalo ayay soo mareen taangi iyo mid ka mid ah gawaarida gaashaaman halkaas marka waxay yiraahdeen labadiiba halkaasaan ku dubanay oo aan ku qararamsanay dadkii la socday halkaasay ku baaba'een sheegashadaasu waa dhanka muqaawamada oo goordhow warkaa soo saartay laakiin Israa'iil wali wax wara oo ka soo baxay dhankeeda ma jiro laakiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin war badan ha ka suganina halaa dhintay saddexaa dhaawacantay intaas lay soo wadaan wax kale ha suganina laakiin nimankan waxay leeyihiin labada baabuurba waa gubnay yidhaahdeen haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyey telefishinka Al-Jazeera wuxuu leeyahay muqaawamada Falastiiniyiintu waxay sheegeen inay burburiyeen laba ka mid ah aaliyaadka militariga ay wateen Israa'iil dagaal ka dhacay dhinaca bari ee Khan Yunis meesha la leeyahay haddaba Saraaya al-Qudus jabhada la leeyahay oo ah garabka militariga ee xarakada Jihaadul Islaami ayaa maanta oo Isniina waxay sheegeen inay burburiyeen laba ka mid ah oo miditaangi yahay gawaarida gaashaaman waxaana la sheegay in markaa deegaanka Khan Yunis dhinaciisa bari ay markaa dagaalku u ka dhacay marinka Gaza haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa dagaalyahanadoodu inay burburiyeen taangiga la yiraahdo Mirkava oo isaguna ay ka mid ah taangiyadii ay wateen ciidanka Israa'iiliyiinta deegaanka la yiraahdo Absan al-Kabira kaasoo isna ku yaala bariga Khan Yunis halkaasoo miino loo dhigay oo markaa lagu gubay waxay sheegeen howlgalka inay kala qayb qaateen dagaalyahanka Kataa'ibul Qassam oo iyaguna ah garabka militariga ee ururka Hamas way marka xaaladda guud marka halkaas saasaa nagta la isaga hayaa cunaqabatayntii duqaymihii waa socotaa iyaguna wixii tabartooda maalin walba saasay u dubanayaan marka halkaas si fiicana la isugu galay warbixinadii ugu dambeeyey marka halkaasay ka yimaadeen warkuna waa cusub yahay kolay wixii warara isa soo tara barnaamijka caawa oo isaguna saacada kadib aan soo gudbin doono ayaan idinkugu soo gudbinaynaa marka marxaladaasu waa dagaalkii weli waxaynu ku jirnaa Gaza marka waxay leedahay dowladda Masar dowladda Mareykanka iyo annagu waxaanu wada bilownay wada hadal ku saabsan sidii loo soo celin lahaa wada xaajoodkii u dhaxeeyay Hamas iyo Israa'iil xabad joojin looga shaqayn lahaa qorshahan marka waxa aad u dareynaya Mareykanka oo leh wafdiga Israa'iil ee maanta tagaya halkaas ee Washington qorshayaashii lagala hadli lahaa iyo wixii oo dhan iyo arinta marka hal la waday leeyihiin haddaba marka aan idin tuso telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay wada hadallo ayaa waxay dhex mareen Masar iyo Mareykanka oo ku saabsan xaaladda Gaza Qaahira waxay sheegtay inay waajib tahay in dib loo bilaabo xabad joojintii wada hadaladii ku saabsanaa si xal loogu helo dhibaatada dadka halkaa ku sugan marka meeshaas marka waxa leeyahay halkaasay wax marayaan dhanka kale Qatar iyaduna wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay inaanu hadda xilligan jirin wada hadal u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas iyo wada hadallo u dhaxeynaan jirin laakiin waxa jira macluumaad guud iyo wada hadallo guud oo hadda la doonayo in hawshii wada hadallada iyo wixii lagu soo celiyo oo dib loo bilaabo dhanka kale mucaaradka Israa'iil ayaa iyaguna warar isdaba jooga soo saaraya ninka la yiraahdo Lieberman wuxuu leeyahay waa in degdeg loo joojiyaa dagaalkaas maxaabiistana la soo saaraa hal mar waliba maxaabiista in la soo gudbiyo marka waxa fikradda isaguna la qabo ninka la yiraahdo Katz oo isaguna mucaaradka kamid ah xisbiyada mucaaradka hogaamiya wuxuu sheegayaa isaguna inay dawladdu tahay in dagaalka hadii uu gabi ahaantii joogsanayo la joojiyo hadii maxaabiista lala soo baxayo marka sheekadaas oo
iyaduna halkaasay maraysaa mucaaradkii aaday u kacsan yihiin waxay leeyihiin dagaalka hala joojiyo haddaba dhanka kale ehelada dadka iyaguna dadkooda lagu haysto Gaza ayaa aad maaragtay waxay u sheegayaan xaaladooda inay dadka xun tahay sababtoo ah waxa lagu jiraa hadda waqti kulayl ah lagu jiraa maaragtay Gaza iyo dhulkaan oo kale waqtigii qaboobaha uu dhamaaday kulayl lagu jiraa marka waxay leeyihiin kulaylihii annagoo kor joogna ayaa saan u dhididaynaa oo kulaylkii uu naqabanayaa god dhulka hoostiisa qof lagu hayo ka war dadkaana loo soo daay war dawladdu sidee wax ka yihiin leed ninka binqafiir la leeyahay isaguna maanta uu hadlo wuxuu leeyahay safqad kasta ama heshiis kasta oo Gaza lagu heshiinayo ma ogolaanayno iskale waa ka baxaya xukuumadda war ninkan maxay yihiin ninkan beerna xabad male markaas mid kamid ah waxay leedahay isaga yaa qabta oo ku tuura god ama cunugu dhaliyaa geliye meesha isaga markaa isbedeli lahaay marka dadkii iyaguna waa qaylinayaan mucaaradkii waa qaylinayaan inkastoo saacadii la soo dhaafay Netanyahu laga hayo wax xoogaa dabacsanaanay leeyihiin warbaahintoodu waxay leeyihiin wax xoogaa dabacsanaana wuxuu yiri awliyadeena ama muhiimadeena koobaad waxaynu hadda ka dhigaynaa sidii maxaabiista aynu soo dayn lahayn saasaan ka dhigaynaa maadaama Iiraan arinkeedii aan meel soo saarnay saas hadalladaas marka sheegay ayaa le haddaba qadar xayisiisa kadib sheeka xiisahan idin haya nimankii Israa'iil waataan hore idinkugu soo gudbiyay inay shuruud ku xireen heshiis nabadgelyo oo ay dawladda Suuriya la galaan taasoo ah in loo saxiixo dhulka ay xooga ku haystaan ee ay Suuriya ka qabsadeen ee buuraleyda Golan adduunku wuxuu sugayay jawaabta asharac iyo kooxdiisa ma dhulkii dhiibi doonaan ma sida maxay yeeli doonaan sida heshiiska ku ogolaan doonaan haddaba warbixino cusub oo sheekada ku saabsan aynu qaybta dambe ee barnaamijkeena galabta ku faahfaahinayna sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada shaashada kaaga muuqda متعشى برشاد القرآن الكريم كا يعلم تشريع هذا هذا عصري أونلاين أديكوا جوا كوريجا أما قبض على شقة مركز دار التقوى وحكوا بري القرآن كهذا عصري أونلاين ما دون كتكبر كرتو حكم ذا القرآن الكريم كا إجادة لغة عربية إيو علوم تشريع هذا استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد وهي فاهينك على حديد من برضه شاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى kulanti wanaagsan asxaabe meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa arin aad muhiim u ah oo aad loo sugayay maalmo ka hor wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil wuxuu sheegay heshiis ay la galayaan Suuriya inay ku xiran tahay buuraleyda Golan oo carabta iyo markay direen iyo Israa'iil ay xoog ku qaadatay Israa'iil oo ilaa hadda ay xoog kaga haysato Suuriya in loo sharciyeeyo oo Suuriya ay tiraado heshiis nooga badashay dhulka qaata taas marka waxa la yiri shacabka Suuriyaanka ah ay uga dhimanayaan dhexdooda hadirsadaan haday rabaan waxay isnacaano laakiin dad dhulkooda jecel waa Suuriyaanku dad caadi ma marka waxay yiraahdeen asharaci kooxdiisu ma waxay dhulkii ku bedelan doonaan heshiis aan la garanayn Israa'iil say u fulinayso Israa'iil waa la kasayaa inaysan ballantay waxa kan ku fiicnayn oo waxay rabto iska samayso ma hadday u saxiixi doonaan alaha haddaba marka maanta war ayaa soo baxay oo cusub haddaba jirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa goordhow waxay soo xiganaysaa warbaahinta cibriga ama yahuudu waxay sheegeen in asharac oo ah madaxweynaha Suuriya aanu ogolaan doonin sida uu yiri in marka la furo heshiis iskaashi
iyo diblomaasiya oo dhex mara Iiraan baalki Suuriya iyo Israa'iil dhex mara wuxuuna sheegay inaanu marnaba heshiiska uu markaa ku jiri doonin wax shardi ah oo Israa'iil shardigeedu uu yahay buuraleyda Golan inay markaa qaadato taas ma ku jirayso war fiican marka war fiican waaye haddii warkaa uu sax yahay oo ninkaa uu diiday dadku way soo dhaweeyeen falcelin badanaa laga sameeyey waxaa leeyahay shaqo fiicana qabatay laakiin barashar badanaa jiro culays badanaa jira oo Mareykan meel walba ku saabsan laakiin nimankan waxay haystaan carabtii kale iyo turkigi iyo wixii oo dhan oo kala shaqeynay marka tatbiicul calaaqaat ma galayna dhahan anagu shuruud ku xirantahay wax shuruud ku xirantahay ma galayno dhulkeenana nooga bax heshiiska waxaan ku galaynaa hadda dhulka naga qabsateen horta nooga baxa bishaar markuu baxay kii aan qabsateen nooga bax kan kalena waqtiga baxaysaan noo sheega nimankanuna waxay taagan yihiin annagu heshiisba haddaan galayno arrinkaasaan ku galaynaa haddaba markii warkaa uu soo baxay isla maanta marka waxaa isaguna hadlay ninka wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii markii hore warka sheegay ee Israa'iil haddaba warbixinta ugu horeysa ee warbixinta uu maanta sheegay wuxuu yiri wasiirka waxaanu haysanaa maslaxad Suuriya iyo Lubnaan aynu heshiis kula galayno laakiin shardiga wuxuu yahay inaynu haysano oo yeelano Golan buuraleyda Golan la yiraahdo كورن كبيركيس حولي لبنان يا سوريا يا وقدرنا علاقة يهشيسك عن سماينين وعرفت الله سماينين لكن أنه ما كقرقرتمين بورة بعضها إسكالة بورة ليدا قولن دول كلا صنولا سوريا كقالت ما سو الدنيا دون ما أقون سنة إلى حوك كويس تروكاس سو ما يوحروا حتى إن الله شرعيه هدي أن سماوين وهدي أن سماوين ست ساسا كوضا يا لبنان وويرر يا ما تودن حسب الله يا رادين عن لا يا بيروت أنقليا كان قراعيا سوريا شو قليا وقراعيا إلى أمريكا أهشيس وقلاتان بورو ليدا قولن وإلى ديبتان هدي ديبان حتى وحيليهين إلى إسرائيل مرنبا كتشوشين وكان مركا وحاورون إنه وحوذا ديدان marka hadda wararkii soo baxay waxa leeyahay sharci iyo kooxdiisu way diideen shuruudaas haddaba sheekadu wali way taagan tahay waa arki doonaa wixii warar ee soo kordha barnaamijkayga galabnimo waa naga inta adikuna fakari aragti waxa qabtaan ugu soo qoran qaybta comments-ka ee fariimaha haddaad cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-na follow gareeyta aan mar kale kulmayno nabadgelyo